daawadaha qiimaha badan oo ku soo dhawow muuqaalka xiga ee toosinay technical WhatsApp 2020 waxa lagu sameeyay isbedelo aad u tiro badan kana qurux badan midkii hore aan u isticmaali jirnay waxyaabaha update-ka ee WhatsApp 2020 lagu soo daray muuqaalkan kuma soo koobi karno oo waxaan diidanahay inaan muuqaalka ku wada caajisno balse waxaan soo koobi doonaa qaar ka mid ah waxyaabaha update-ka ah ee WhatsApp 2020 lagu soo kordhiyay kuwa oo si joogto ah u isticmaalno waxa ugu horeeya waxyaabaha update-ka ah ee WhatsApp 2020 lagu soo kordhiyay haddii aad tahay qof isticmaala WhatsApp waxaad ka barhaydaa in qofka kula sheekaysanaya WhatsApp-ka oo ka barhayo dhaqdhaqaaqyada qaar oo WhatsApp-ka aad ka sameynayso sida markaad fariin u qorayso cod u duubayso haddii aad statuskiisa booqato haddii aad ka dilayday message haddii aad codkiisa dhageysatay haddii aad fariimihiisa akhrisay iyo haddii aad online tahay iyo haddii kalaba WhatsApp 2020 wuxuu ku siinayaa option oo wuxuu ku leeyahay haddii aad doonayso intaas oo dhan qofka saaxiibka inuu ogaado u ogolow haddii kale ha u ogolaanin labo WhatsApp-ka habeen iyo maalin ayaan u adeegsanaa muran kama taagna midaas isticmaalada WhatsApp-ka maalintii wax saameyn ah uma geysan karaan araggeena sababtoo ah iftiinka qoraxda ayaa ka awood badan iftiinka taleefanadeena balse habeenkii oo waan kala kulmi karnaa dhibaatada dhanka aragga ah laakiin WhatsApp 2020 wuxuu ku ogolaanayaa inaad WhatsApp-ka isticmaashid habeen iyo maalin adigoon aragga wax dhib ah soo gaarin wuxuuna leeyahay iftiin loo isticmaalo habeenkii loona yaqaano dark themes shakhsiyaadka aan WhatsApp kala sheekaysano nomooda si nabad sheekaysigooda oo qaarka kale way inoo muhiimsan yihiin WhatsApp 2020 waxaa lagu soo daray inaad shakhsiga qaaska ah oo aad jeclaan lahayd inaan fariimihiisa laga arkin aad ku xirato fursadeed ku qaas ah hadduu ahaan lahaa bitem ama bimba haddii aad rabin in qofka aad la sheekaysanayso oo ku soo bixin qaab calling ah waad iska xiri kartaa callingkiisa oo waxaad u ogolaan kartaa oo kaliya inuu kula sheekaysto message ahaan ama fariin ahaan waxyaabaha update-ka ah soo ma koobi karno sidaan hore idinku sheegayba muuqaalada kale ayaan idinku faahfaahin doonaa balse aan idin sharxo 4 qodob iyo hadda aan idin faahfaahiyay soo dhawaada marka hore saad u soo degsato WhatsApp 2020 qaybta sare Google Play ayaa waxaad ku qor doontaa Play Store qaybtiisa sare ayaad waxaad ku qor doontaa WhatsApp Messenger ama WhatsApp kaliya ku qor kadib waxaad leedahay Search ama Go saa u jeedid aniga hadda waa igu jiraa oo WhatsApp Messenger-ka waxa dhiman oo kaliya inaan open dhaho marka open dhahdi kadib waa sida WhatsApp-ka caadiga aad ugu shubanayso wuxuu ku weydiin doonaa lambarkaaga verification code ku soo dhacayo markaad geliso kadib WhatsApp-ka caadiga ayuu ku soo kici doonaa sida saan wajigan oo ku soo kacaa haddii aan ku hormarno qaybtii koowaad ee aan soo sharxaynay marka rabtid qofkan inuu dhaqdhaqaaq walba aad WhatsApp-ka sameynayso oo ogaanin waxaad dooranaysaa asiga qaybta sare profile-kiisa ayaa dooranaysaa waxaad dooranaysaa custom privacy markaad custom privacy aad doorato kadib wuxuu ku soo bandhigi doonaa shaashadan ama window-gan ay ku qoran tahay hide blue ticks qari calaamada blue inuu qofta qortay hide second tick calaamada labaad ee blue inay soo kortay iyadana qari waa mid kale waxa ku qoran hide microphone ka qari sidoo kale typing sidoo kale inuu recording soo duwaa inaan recording u duwaa sidoo kale statuskiisa inaan fiiriyay iyo inaan wax ka dilayday intaba ka qari mid ka rabtid ayaad ka qarin kartaa tusaale hadda taawtid hide typing qofka marka wax qoris ma dareemi karo haddii hide record aad dooratid marka wax duways ma dareemi karo qofkii way u dhacayaan okay ay leedahay mid ka rabtid marka ka dooratid haddii aan u gudubno qaybta labaad waa themes settings ayaa dooranay qaybta hoos kadib waxaad dooran kartaa themes application wuxuu ku soo bandhigayaa sida saan light theme dark theme transparent theme iyo custom theme transparent theme haddaan dooran noocan ayuu nagu soo muujin doonaa haddii aad u baahan tahay waad dooran kartaa haddii kalena habeen ay ku tahay waxaad doorantaa dark theme sidaan ayuu kusoo baxaa habeenkii markuu yahay dark theme-ka haddii kale oo maalin uu yahayna light theme ayaa dooranaysaa light theme-ka kadib okay leedahay qaybta saddexaad waa qaybta shakhsiga ku gaarka ah password-ka ku xiranaysid lambarkan ayaan hadda ku xiranayaa password waxaan rabaa lambarkan sirtiisa inaan laga arkin marka hore asaan ku dhufanayaa qaybta sare profile-ka ayaan taabanayaa markaan profile-ka taabto qaybta hoos waxaa ku qornaa ujeedaa security ayaan ku dhufanayaa waxa ay soo baxay laba option bitem maarta mis bin waa lambarka caadiga bitemka waa shaashada mid kale u xiray bitem haddaan doorto hadda waa kana sida noocan oo kale waxaan ku xirayaa marka calaamada saxda ah haddaan fiiriyo aan soo doorto oo ii xiran yahay
calaamad saxda lagu furaa marka rabtid inaad ka qaad passwordkani qaybta sare aad ku laabanaysaa security ayaad tagaysaa calaamadii saxda ayaad gelinaysaa sidaas ayaan ugu qaaday qof ayuu ka dhahay sidaas ayaa ugu qaaday haddii aan ku tuso qaybtii afraad oo ahayd inaad iska xirtid qofkan inuu kusoo waco ama WhatsApp inuu kaa soo waco qofkaad dooranaysaa privacy waxaad dooranaysaa qaybta profile-ka meesha ay ku qoran tahay no calls ayaad fix saaranaysaa qofka damba kale kuma soo wici karo hadduu kusoo wacana wuu ku jarmaya maanta dhan waa intaas un fadlan haddii aad channelka ku cusubtahay subscribe saar like saar muuqaalka haddii aad ka heshay share gareey ku mahadsanid daawashadaada intaa wixii ka dambeeyay isii faraxsanaaw